السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada idinku talagalnay. waa khamiis taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 12 bisha Juun sanadka 2025. haddaba barnaamijku waa kii ugu horeeyay barnaamijyada aynu maanta idiin soo gudbin doono. waa barnaamijkeennii subaxnimo. qodobo muhiim ah aynu barnaamijka ku faaqidi doonaa. Mareykanka oo xalay wacdara ka dhigay bariga dhexe. mar dambe waxaa qorshihiisa fashilisay Iran. haddaba maxaa dhacay xalay? sidee wax u jiraan? maxaa ka dhacay xalay oo aadan ogeyn gobolka bariga dhexe? haddaba tafaasiil la yaab leh oo ku saabsan ishaysiga Mareykanka iyo Israa'iil oo dhinac ah iyo waliba Iran oo dhinaca kale ah ayaanu barnaamijka inta badan ku faahfaahin doonaa. waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa baarlamaankii Israa'iil oo xalay kulan yeeshay. maxay ku dhamaatay qorshihii in baarlamaanka la kala diro iyo in kale? qaybaha dambena waxaanu ku eegi doonaa kolonyadii dadkii ka shaqaynayay nabadda ee u ololeynayay in Gaza laga qaado xayiraadda. halkay ku dambeeyeen? halkay soo marayaan? haddaba tafaasiil ku saabsan sheekadaas iyana qaybta dambe ayaynu ku faahfaahin doonaa. inta aan ku jirno wixii warar ee soo kordhana waan idinla socodsiin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu talagashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turki. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan. kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadeena. waa barnaamijkii ugu horeeyay maanta oo khamiisa aan idiin soo gudbinayno. waa barnaamijkii subaxnimo. haddaba qaybta ugu horeysa barnaamijkeena waxaynu aada u faahfaahin doonaa xalay wacdarihii ka dhacay gobolka bariga dhexe. xalay saq dhexe waxaa soo baxay warar isdaba joog ah. carabtii khalkhal, madaxdii khaliijka waa wareereen. sidee wax u jiraan? maraykankiya wuxuu leeyahay waxaan qaadanayaa shaqaalaha militariga caayiladkooda ama qoysaskooda iyo safaaradaha iyo waxa dhan waa raranaya. waxaan ka bilaabayaa Ciraaq. waxa joogoo dhan waan qaadayaa. diyaaradaan u diray wasiirka gaashaandhigga. markaasaan sidee wax u jiraan? markaasaan arrintu ma wanaagsana. arrintu waa kharibad tahay. meel xun bay taagan tahay. yaa meel xun u taagan? arrinta Iran halis badanaa ku jirtaa. saldhigyadii oo dhan heeganaa la geliyay. ciidamada meesha ay u deganaayeen khaliijka oo dhan ciidamadii waxaa la arkaa mar diyaarada hawada gelinaya, mar soo dejinaya, mar gantaalahooda harba dhinac u jeedinaya. carabtii waxay leeyihiin sidee wax u jiraan? meesha maxaa ka socda? sidee wax u jiraan? yaa weeraraya Iran? goormayse la weerarayaa? arrinkii khalkhalkii iyo cabsidii iyo argagixii iyo walahowdkii saakay maxay kusoo dhammaatay? Iiraana waxay tiri waxaasu quraafaad waayay tiri. wax ka jira male. carabti iska seexday tiri. sheeko la yaab laan idinayaa. haddaba marka aan idin tuso telefishinka Aljazeera oo saakay sheeko la yaab leh ka qoray arrintaas. wuxuu leeyahay Maraykanku waxay galeen xaalad degdeg ah oo aada u sarreysa ayay galeen kuwa bariga dhexe ka jooga. laakiin Tahraan waxay ku tilmaantay arrintan Maraykanka uu sameynayo
taatiko ama qaab uu ku doonayo inuu wada hadallada iiraan culays ugu saaro. joornaalka la yidhaha Washington Post ee kasoo baxa dalka Maraykanka ayaa wuxuu yidhi safaaradaha iyo saldhigyada Maraykanka uu ku leeyahay gobolka bariga dhexe ayaa waxaa la sheegay in xaalad degdeg ah la geliyey iyadoo laga baqayo in Israa'iil ay weerar ku qaado Iiraan ay markaa jawaabteedu ay beegsato meelaha ay joogaan saldhigyada Maraykanka iyo danaha Maraykanka ee gobolka. haddaba diblomaasi ayaa wuxuu sheegay u waramayay joornaalka in markaa hay-adaha sirdoonka Maraykanku ay leeyihiin waxaynu haynaa xogag muhiima oo ku saabsan in Israa'iil ay qorsheynayso iyadoon Maraykanka la tashan inay weerar ku qaadi karto Iiraan. muujeeda waa laba hadal oo isa saaran waay. labada hadal marka maxay kala yihiin? mid waa waxa kan heeganka la geliyey, safaaradihii ha dhihin, saldhigyadii ciidanka ha dhihin, wixii oo dhan heegankaasaa la geliyey. kow, Iiraan marka maxay leedahay? Iiraan waxay leedahay waxa kan waa taagtiko, annaga cadaadisna laku saarayaa wada hadalka axadda annaga iyo iyaga aan isugu iman doono ayaana lagu argagax gelinayaa. waa naqaanaa ninka la yidhaha Trump boolo xooftadiisa, laakiin wax uu naga cunayo ma jiraan ee carabtan hawelwelina iska seexda. sheekadaasu marka halkaasi bare weli warbixinadu marka way sii socdaan. warbixinta kale ee telefishinka Al Jazeera uu qoray wuxuu leeyahay Iiraan iyaduna waxay ku hanjabtay inay degdeg uga jawaabi doonto weerar kasta oo kaga yimaada Israa'iil. joornaalka la yidhaahdo New York Times ee kasoo baxa Maraykanka ayaa wuxuu sheegay isagoo soo xiganaya mas-uul Iiraani ah in markaa madaxda militariga Iiraaniyiintu ay kulameen islamarkaana ay arrinkooda meel isla dhigeen oo ah jawaab aan laga tashan in markiiba la siiyo haddii weerar uu kaga yimaado dhanka Israa'iil. waxay yidhahdeen anagu gebgebtaas iyo qararacdaas iyo dad hala daadgurayo shaqaalaha maxaa la qaadaya dheh shaqaalaha la qaadayo waxaa kan maxay annaga haddii nala soo aado nagtaadi ka saarana marka annaga mana loo boolo xooftay kare dheh. Iiraan iyadaa sii sheegtay waxay tiri waxaan waa taatikada Trump way dhaan annaga naloo boolo xooftayna waa la raraya dadkii xaalada khatar ay ku jirtaa. annaga carabtan maa noo maleysay dheh. carabti saasay u jaraynayaan maxaa dhacay sidee wax u jiraan xaggee la iska soo galay. markaas Iiraan waxay tiri war annagaa dadka idinka naqaale sugan taatikada alaabta waxaa yidhahdaa taatikada Trump layidhahda annagoo culays wuxuu nagu saaraa wada hadalka axadda masqad uga furmi doona Iiraan iyo Maraykanka oo markaa arrinkii nuclearka laga hadli doono inuu cadaadis nagu saaro. waxaasuna wax shaqaynaa maanaa leeyahy. weli warbixinada sheekada ku saabsan way noo sii socdaan. haddaba warar kale oo goordhow laga qoray sheekadan waxaa leeyahay madaxweynaha Iiraan wuxuu sheegay annagu marnaba ma waafaqayno ma ogolaanayno wax ku yimid awood. madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaa wuxuu sheegay in markaa wax awood ku yimid inaanay marnaba ka tanaasulayn. wuxuuna sheegay in nuclearkoodu ay haysanayaan oo cid ay kala hadlayaan arrinka aanay jirin. wuxuuna sheegay inaanay marnaba u socon inay hub samaystaan laakiin ay xaq u leeyihiin inay nuclearkooda si nabadgelyada uga faa'iidaystaan. madaxweynaha wuxuu leeyahay annaga mana handadi karo awood iyo qababac iyo wax ku sameeyana ma ku samaynayno. safaarada raray saldhigyaa heegan geliyay waxaas dhan ruwaayad waay dheh. annaga wax handadaada waxba ma ku sameynayno. warkeenu waa cad yahay nuclearkan si nabadgelyaan u isticmaalaynaa. baarayaal ha la soo diro hub ma sameynayno. meesha uu noo joogaa waana ka faa'iidaysanayna adduunka oo dhan ka faa'iidaysta. laakiin hub nuclearkaaga oo dhan maxaa u baabi'inaya dadkoo dhan ba haystaan. sababta keligeena aan u baabi'inayno maxay? marka sheekadaasu marka waxay yidhaahdeen halkaasay maraysaa. marka waxyaabaha la yaab kale General Faiz Ad-Duwayri ayaa la weydiiyey. waxaa la yidhi
kala orodkan maraykanka ka waran inta iiraan sheegtuu sheegay wuxuu yidhi iiraan waxay sheegaysa waa sax ciraaq keliya muxuu uga daldalaa dadka uga cararaa meelaha kale waa ka qaadi doonaa ule muxuu ka qaadi waayey saldhigya waaweyn oo ku leeyahay khaliijka saldhigiisa ugu weyn wuxuu ku yaalaa qatar wuxuu ku yaalaa baxrayn wuxuu ku yaalaa imaaraadka wuxuu ku yaalaa kuwait haye ma daldashu maa qaato ma ciraaqdan oo booloxooftadan iyo waxaan maxay tahay marka wuxuu yidhi waxaan waa taatico sida iiraan ay sheegtay oo ninka taraama taagtikooyinkiisa ka mid tahay waa lagu wareerinaa afarta dhinaca laga soo galaa inaa isku dhex yaacdaa la rabaa laakiin wuxuu yidhi dadkana ma yaqaano nimankan farisiyiina la yihahdaa niman waxaasu qoro ma ah marka waxay soo taagan yihiin warniba waa kula soconaa taatikadaadii waxaagay iska wado dadkaa handadi karta handad laakiin annaga ha noogu hanjabin israa'iil aad isoo weeraraysaan ka carar israa'iil yaa hortaagana dheenaad annagu waa haynaa dheen meelaha nuclearkooda wuxuuda dhan maalmaha dhan ay ku celcelinaysa iiraan inay haysato xogtii oo dhammaystiran dhan ay hayso nuclearkeena ha soo weerartee dheh waa kaaskooda ha noolaaday dheh waa laysla gubanay dheh haddiina la soo aado meesha waa la wada holcaya ay dheh marka sheekadu marka halkaasay baraysaa marka xalay waxyaabaha la yaabka leh ayaa ka dhacay gobolka bariga dhexe waayahay qaybaha dambe waxaan ugu tegi doonaa kolonyadii aan la soconay laftirkeenu dee hawadaan kala soconnaa kolonyada gaza inay furto la rabo oo libiya maraysa taasaan la soconnaa anag meesha ay joogto iyo xaalkeedu qaybta dambaan uga warrami doonaa laakiin markan waxaan galaynaa shalay waataan idiin sheegay baarlamaanka israa'iil in uu kulan lahaa mucaaradka iyo qolooyin isbahaystayna ay keenayeen hindise ah in baarlamaanka la kala diro doorasho deg dega waddanka aado si ay u dhacdo xukuumadda netanyahu xaaladaasu markaa meel halise inay maraysay xalay saq dhexaa baarlamaankii fadhiistay shalay dhan doodaa socotay nimankii xukuumadda waa la isdagaalay haddaba marka aan idi tuso wararkii ugu dambeeyay sheekadaa laga qoray jaradda la yidhaahdo al-qudus ayaa saaka waxay qoraysaa baarlamaanka la yidhaahdo kiniisadka israa'iil ayaa u codeeyey qorshe ka dhan ah in isaga la kala diro haddaba warbixinta waa sii socotay waxaa leeyahay sharci dejiyayaasha israa'iil ayaa si dirqiya u diiday sharci ay soo gudbiyeen mucaaradka subaxnimadii si loo kala diro kiniisadka oo markaa sidaas darteed loo qabto doorashooyin sharci dejin ah oo lasoo hormariyo haddaba 61 ka mid ah xildhibaanada ka kooban 120 xildhibaan oo kiniisadka ayaa u codeeyay hindisa sharciyeedkan akhrinta horudhaca ah halka 53 xubnood ay taageereen muntida marka mucaaradkii 120 xildhibaan oo joogta 61 meeqa looga qaaday hal cod waaye macnaha 60 marka la isku daro 120 way sinaan lahaayeen qolada marka netanyahu iyo raggiisa iyo baarlamaanka inuu sii jiro rabaa ayaa hal cod dheeraaday hal cod marka 61 cod ayaa hawshaa lagu meelmariyay marka sheekadu marka waxaa leeyahay waxay ahayd arrin aada u adag way khatartii ugu weyneed ee gashay marka hadda hal cod ama 2 cod oo kale oo laga soo qaado ayay khatar ku jiraan marka xaaladoodu halkaasay maraysaa leeyahay marka waxaa leeyahay markii la eego ma baxsan inay leeyihiin dadka wax falanqaynaya xukuumaddan laakiin waxa waaye hadda waxaa laga rabaa waxyaabo badan inay dhagaysato dhagaha u furto xisbiyo badan oo iyaga la socday ayaa halkan ka codeeyay oo qolada diimeedku ay leeyihiin xarawyada oo lagu qasbayay ciidanka halkaasaa marka hawshaasu maraysaa haddaba qadar xayisiisa kadib waxaanu u gudbi doonaa kolonyadii iyo xaaladeedu halka ay marayso waa isku soo noqonayna sharikadda Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafadda Backlands jidka 6 Avenue City Park dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah
waxaana uu ka kooban yahay sida 2 qol 3 qol 4 qol iyo weliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo ah 2 dabaq oo isdul saaran waa nooca loo yaqaano duplex haddaba iminka waxaa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiime hanti yeelo kala xidhiir telefoonada ma jeceshahay barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada hab casri ah online ah adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada markaas daaru taqwa waxa kugu baraya qur-aanka hab casri online ah maadooyinka aad ka baran karto waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka higaada luqada carabiga iyo culumta shareecada isdiiwaangelintu way socotaa fadlan hore u gaadh waxay faahfaahin kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda hamogaadi dugsiga markaas daaru taqwa kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadeena waa barnaamijkii ugu horreeyay saaka oo khamiis aan idiin soo gudbinayo haddaba barnaamijka qaybihii ugu dambeeyay ayaynu maraynaa qaybtan waxaynu ku faahfaahinaynaa kolonyada laftirkeenu waa la soconaa hawada kala soconaa kolonyadaasu xaggee maraysaa waxaa noogu dambeysay iyagoo liibiya jooga marka waxaa leeyahay shalay ilaa xalay waxay ku sugnaayeen caasimada liibiya ee Tripoli waxay xalay saq dhexe u shiraacdeen magaalada la yiraahdo Misrata dhinaca bariga ku taala saacadaha soo socdana waxay ku wajahan yihiin xuduudka Masar marka waxaa leeyahay xogaa daleyda ku dhacay macnaha waqtigii laga sugayay maanta oo khamiis ah inay Masar galaan ay ahayd laakiin daahitaanka maxaa keenay shacabkii liibiya meel ka martaba kolonyadii weys shacabkii dhanaa soo baxay annaguna waa idin raacayna ay taageen kasaan furaynaa war u kaadiya Masara hadda inaysan inteenaanba xataa na ogolaana laga yaabaa oo warkeedu warqad ku qoran iska yahay oo maaragtay 350 gaari yaryar iyo 20 basasa iyo 1,000 iyo dhowr qof oo 2,000 ku dhawaad dada aan nahay hadda idinkuna nasii raacdaan oo Masar oo saasaan ku galeynaa leeyahay Masaridu inay culays noo keento maaya waa idin raacayna meelaan ku joogsana male walaalahayna annaguna agtooda ku dhimanayna ma waxa meesha buuqa meesha socdo qoladii marka hogaaminaysa kolonyada iyo dadkii meesha isku soo baxay ayaa marka la wada hadlaya waxa leeyahay bal u kaadi annaga horta aan galno horta meesha aan wax ku soo ogaano marka saasa dadkii yaaba la celin la ayaa lagu leeyahay dadkii liibiyaanka ahaa ayaa waxay leeyihiin ma idin kaarayno 350 baabuur iyo 20 baabuur oo ka timid Morocco iyo Tunisia Algeria iyo Mauritania Soomaa iyo kuwa Liibiya ka raacaya iyaguna marka waxa leeyahay sida Masaaridu ay ugu ogolaan karto dadka inta la eg inay xuduudkeeda ka gudbaan oo wadankeeda galaan taasa ayaduna calaamad su'aal inkastoo Masar shalay aan idin la wadaagay inay soo saartay wasaaraddeeda arrimaha dibadda warqad ay leedahay dad kasta oo halka Gaza in la furo raba way fasaxayeen haddana waxa leeyahay tanu macquul ma noqonayso dhowr kun oo qof oo baabuur intaas la eg watay inay hal mar soo galaan qaar inay soo fasaxdo waa laga yaabaa marka xoogaa taasa iyaduna dood kulula ka taagan Masaaridu go'aanka ay qaadan doonaan iyo sida dadkaan oo dhan ay u sii deyn doonaan wixii oo dhan marka la isku haya marka waa arki doonaa kulay meel ay ku dhamaato ilaa caawa waxa leeyahay waxay ku wajahan yihiin xuduudda inay markaa Masar tagaan marka Masar go'aanka ay ka qaadan doonto dadkaas oo dhan ma wada deyn doontaa ma qayb bay deyn doontaa ma celin doontaa marka laga tashanaa haddaba marka sheekadu iyaduna halkaas meel qolooyinkan aan la soconano waa la soconaynaa meel ay xaalkoodu ku dhamaadana waa arki doonaa barnaamijkaygii subaxnimo akhyaaray meel kastoo aad joogtaan saakii waxay ahayd khamiis intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa fakar iyo aragti waxaa qabta noogu soo qor qaybta fariimaha iyo commentiska haddaad ku cusub tahay subscribe-ka ka ilooga youtube-ka facebook-gana follow garay inta aan mar kale barnaamijkan lamid ku kulmayno akhyaaray barnaamijka la gareey oo share gareey nabadgelyo